عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنال كان iga filo wanaag maanta maxay wadaa kastar ama labaniyad qof walba sidoo u yaqaano iyo ku sameynin wax powder kastar ah aan guriga ku sameystay oo jeedaan sida igu soo baxday quruxda badan maasha Allah wax walba banaanka yaalo gisac ku jiro guriga waa lagu sameysan karaa maaha wax dhib ma keenayso wax dhib ma lahan waxa guriga ku sameysatidana mar walba ka qurux badan oo ka macaan badan marka challenge-gan waxa ku challenge gareysanaya Nasrab Abtidon Qamar Bintu Amir Salama Food ama Salama Siman MSC Bintu Fatma Janal insha Allah inaa ka soo baxdaan rajeynaya kulay waa ujeedaan quruxdiisa maniga hor dhacay sida u sameeyay waxaan ka sameystayba marka afurka kadib taraabiixda kadib isku qaboojile gurigaaga adigoo joogtid aana u baahanin wax powder ah kastar powder ah u baahanin oo qarash ka bixin oo hadana wax kiimikeysan ama khasaadeysan aadan isticmaalin maasha Allah kusoo dhawaada ugu horeyn channelka hada ku cusubtaa subscribe saar gambaleelkana taabo sidoo kuugu soo dhaco wax walba cusub aan soo geliyo ugu faa'iideysato waana ku mahadsantahay daawashada quruxda badan aan daawatid sidoo kale commentiga quruxda badan aan noo soo fartid waxa kale ku mahadsantahay like-ta share-ta maasha Allah asxaabi idinka dad niigunahay maasha Allah waa mahadsantihiin waxa kale nagala xiriiri kartaa Snapchat Instagram iyo Facebook intaba waa naga heleysaan ila arka kulay hoosheen hada guda galina waxaan ka sameystayba in laba qayb oo kala dhigay qaybtan qaybta labaad oo buskudka isticmaalayo buskudka la jooska adiga iska leh daarabtid waa iska deyn kartaa hadaa rabtid waa ku sharxan kartaa buskud waxa ahayn ku sharxan kartaa hadaa jeceshahay ama buskud cad oo chocolate ahayn ama buskud oo dhan iska deyn kartaa wax alaala waxa jeceshahay isticmaalaysa sokortana saddex meel koobka marka loo dhigo meel ka isticmaalaya meelan buskuda isticmaala macaan waaye saddex qaando waraanga ah oo ujeedaan saddex qaando waa qaandada cuntada lagu cuno weyn iyo saddex xabo ukun ah ukunta jaalaha isticmaalaya ukunta cad ma isticmaalayo ma u baahni ukunta meesheeda cad ukunta jaalaha osna isticmaalaya bas isla koobkana caanahan ku soo cabirtay waa afartiisa iyo vanilla intaas una isticmaalaya wax ka fudud ma jirto mid kale caanaha waxa afar koob ugu dhigay iyo saddex qaando waraango waxa rabaa ukunta inay bislaato si ku bislaato mahalabiye camal hadii loo kariyo oo labaniyad cad camal loo kariyo dhiba imaanay sababtoo ukunta way shiireysaa marka ukunta iska bislay caanaha iyo waraangada kala dheereysi mar walba caanaha ku dheeraado qoyaanka ku dheeraado mahalabiyada waa la isla sameeyay hal koob caano hal koob oo waraanga way maaha laakiin tan waxa u baahanahay ukunta inay bislaato oo jaalaha fursad ay ku bislaataa la siinaya oo adeeg isla markiisa u soo noqonin marka saas sameynaysa afar koob oo caano ah saddex qaando waraanga ah saddex xabo ukun ah ukunta iyo waraangada mar walba waa inay jin ahaadaan laba xabo waraango laba qaando waraanga hadaa isticmaasho waxa isticmaalaysa laba xabo ukun marka ukunta iyo waraangada daa'iman inay jin ahaadaan waaye laakiin caanaha mar walba inuu ka badnaado waaye sidii tartiibkeeda ay ugu bislaato hada jaalihi waa ka wada baxsaday gooni u baxsaday ujeedaan cadka dhan waa iska bixiyay cadka kulay waxa ku sameysan lahayd aad taqaanid in ha iska daadinin waxyaalo badan oo ku anfacaya jaalaha una hada ka socday waa ujeedeen qalaadada ku shubtay meel dhiganaya ma daadinayo wax xun aan ku sameysana sokorta ku daraya asxaabe sokorta hada sokor badan jeceshahay ka badso hada ani waxa saddex meel marka loo dhigo meel aan ku soo darsaday because macaan badan maro hadana buskudka macaan badan siisina marka dhexdhexaad ugu imaanaya ma fahanteen
laakiin haddaa sokorta adig jeceshahay zaaid ama buskut aa isticmaaleyno kastarka kaligiis aa isticmaaleysid koob haafkii ama koobka dhan ka isticmaal oo macaan aa jeceshahay. xataa haddaa kala bar isticmaashado kastarka aa isticmaaleynin buskut dhexdhexaad uu kuu noqonayaa. qasqas haddaa jeceshahay koobka halkiisa isticmaaleysaa. vaniilada ku daray asxaabi ani maa ul wardi ma haysto marka heelan ku shiidanayaa insha Allah. heelan ku shiidanayaa ukunta shiirkeeda si iiga baxdo. maa ul wardi haddaa isticmaashidna aa haysatid heelka ka maarmeysaa. heelka marka waa kusoo daray laakiin kaamirada ma shidneen raali ka noqda. waxa dhan way isku shiidmooyin macal heelka macal waxa dhan. alaabtan miiris ma u baahna laakiin ani waa iska miirayaa sababtoo heelka aan mirihiisa ka miirayaa iyo qoloftiisa oo shiidmatay. haddii oo heel ku darsanin oo ku shiidan ama heelka budada aa isticmaashid ma u baahanaysid wax shiidis ah. laakiin ani heelka dhadhanka isticmaalaya waxaan u isticmaalaa heelka dhadhan. heelka budada jaas waa ka baxday maaha carafta yacni ziyaado ma lahan. marka heelka dhadhanka ku fiican si ukunta riixadeeda ay kaaga baxdo. dabkana aa ku daaraysid u gaabise tartiibkeeda ugu karto. marka waa miirto ujeedaan. waxaas xumbo waa xumo ujeedaa heelka mirihiisu ku jiray. waxaas iska miiray hadhoot afkooga dadka ka galgala maaho intaasaa diidaaya waa ujeedaa. waxaasaan diidaaya qashinkaas yar iska bixinaya. carafta already wuu ka qaatay. carafta u baahna waa ka qaatay. miraha waa iska bixinaya hadhooti markii la cunayo dadka khashkhashaada maaho. marka waa kana waa inoo diyaar. digsiga ku shubaneynaa dabka saaraneynaa isku soo noqoto waan. asxaabi waa kana dabka saaraneynaa oo ku shubaneynaa digsigii dabku noo saaran yahay waa gidgidinaya ilaa uu ka soo karkaro sababtoo hadii kale uu iga kuusanaa burtuq oo iga yeelanaya hadaa markuu soo karkarayo dabka aan ku dhaafo. marka saas qaandada maanta dhan uu gidgidinaya soo burtuq igu yeelanin ilaa uu ka karkaro madiinaysid oo biyo u yahay madiinaysid waa uga gidgidinaysaa lehoo haduu isoo badalooya ujeedaan. asxaabi dadka qaar waxay isticmaalaan food color oo jaalaha soo color fiican oo siiyo laakiin aniga ma isticmaalayo food color-ka ma jecli inaan ku darsado. oo ani ma dhihno wax dabiici ah isticmaalaya ama ka sameysanaya. marka food color-ka waa ka daayay. waa ujeedaan dabiiciga leesas loogu socdaa. marka adiga haddaa jeceshahay food color-ka ka sameyso insha Allah. waa ujeedaan soo isku soo bedelo oo adkaaday markaan soo adkaanaya. markuu saan xaaladda ay marayso dabka u gaabinaya. heeda uu gaabinaya dabka soo tartiibkiisa uu karkar mar walba imaanaya waa gidgidinaya. hadda gidgidis oo kor taagnaasho ma iiga baahna ma fahmino. marka mar walba imaana waa gidgidinaya leh mar walba imaana waa gidgidinaya leh. marka waa sidaas saasoo noqonayo ujeedaan. kastarka kale maxaa oo ka baryaya waa kaasa ujeedaan. asxaabi soo baroobay insha Allah waa ka heli doontaan. mar dambe kastar budada ma soo gadan doontaan insha Allah. alaabtan haddaa mar baroobeysaan idinkaaba ka heli doonaba. waxaan rajeynayaa asxaabta kusoo xujeysteen inay iigu soo jawaabaan sida ugu dhaqsiyaha badan. hadda waxaan sameysanayaa qaybtii labaad. qaybtii koowaad saas ugu soo baxnay. buskutka Oreo-ga hadda isticmaalayo Oreo qof ka siinin male ama meel laga helaynin male. marka Oreo isticmaala ay buskut haysatida isticmaali kartaa. buskut saada waxba ku jirna isticmaali kartaa oo cad ama buskut kale oo chocolate ani hadda waxaan isticmaalayaa Oreo. creamka dhexda ugu jiran ma u baahna waa iska bixinayo. marka ila socod wanaagsan. sida horena igu sheegin buskutka aad u macaan yahay maaho. buskutku maadaama aad u macaan yahay sokorta iska yaree haddaa sokor badan jecleen ha ku sirmin.
hab inta aad ku siiso sokorta oo kan hadhowta khaskhas ah oo la cuni waayo waxaa naqanaa marka oo buskudka aad ku dartid iyo sokorta ku yaryahay sokor dhexdhexaad ah kaaga soo baxaysa meesha. Ma ila fahanteen? haddaa buskud dhan isticmaaleynin oo macaan dhan isticmaaleynin dhexdhexaad haddaa rabtid haaf koob ka dhigo, haddaa rabtidna khaskhas hal koob oo kugu filan. insha Allah qofba horta dhadhankuu jecel yahay asaa ka dhiganayo, taas wax la isku sheegayo maahan. asxaabi blenderka ku shiidanaya buskudka bado inaa ka dhigtaa rabaa. haddii aa makiinad aa rabin oo waqtiga kugu yaryahay waqti fiican aa haysatid ka wataa makiinada ugu sahlasane oo makiinada aa haysanin oo waqti fiican aa haysatid ama aaba rabinba makiinada inaa ku shiidatid baca ku xiraysaa waa ku jajabinaysaa. ilmuhiim buskudka budo aa u baahan tahay bes. alaabteena waa kana hadda kasoo daminayaa buskudkii waa soo diyaarsaday iyada waa ka daminayaa. talaajada asxaabi ma gelinayo horta kow iyada inta soo qaboojiyo haddana buskudka ma ku sameynayo ayada kuleel ah waxa dhan isku sameynaa talaajada gelina caawa dhan oo ugu tagaya. hadda waqtigaa sameynaya habeen waayo marka fursaday haysataa ay ku qabowdo waxa ma kala qaboojinayo qaandaa ku shubayaa geesahana waa ka simayaa dhexda isku keenayaa. waxaa rabaa kadib kastarka inaan ku shubo kastarka baaquliga kusoo shubtay asxaabi 15 daqiiqo oo ii saarnaa dabka oo ii karayay kastarka. haddii oo ka yar aa karisid ama dab xoog aa ku karisid horta uu kaa goonayaa. kow labo waraagada ma bislaanayso hadhowti markaa cunaysid dhadhankeeda waa ka fahmaysaa. ukuntana ma bislaanayso way niiga dhadhamaysaa oo shir nooc kale yeelanaysaa. marka ukunta aad iskaaga bislaaya iyo waraangadaba dab oo yariis ku kari si oo kugu karsamato iyadoo kaa gubanin. 15 daqiiqo way ku filan tahay. marka haddana kastarka aa ku shubo haddana buskud aa ku shubo ula jeedin haddana kastarka aan ku shubayaa. intaas unaa ka dhiganayaa 3 dabaq. haddana kana sidaas oo isla sidii ku soo sameynaa. alaabtan alaab ka fudud ma jirto ujeedaan maasha Allah iyadoo fudud haddana ma u baahatid kastar hadduu ku yaalin oo kale maalan oo dad kuu soo socdo saana ugu soo tuuranaysaa maaha marti kuu timaado kale ama ilmahaaga inaad siisatid oo reerkaaga u samaysatid aa rabtid marka ma iska dhaafaysaa mise waa doonaysaa waa may sida oo haweysan kartid oo ugu fudud waa sidaan maasha Allah waa ujeedaan. marka caawa dhan talaajada iskaaga jiraysa kullama ay qabowdo kullama ay sii macaanaataa waaye. caawa dhan talaajada ugu tagayso macaan u sii noqdo insha Allah berita la isticmaalaya. hadda waa haween ma loo baahna maaha haween aa sameynaya berin waa la sooman yahay. haddii aad waqti haynin kastarkaa soo qaboobsanaysaa markaa kastarka soo qaboojisid kadib waxaa sameynaysaa waa isku shubeysaa markaa ku shubtid kadib wax yar aad talaajada gelinaysaa nus saac ama 40 daqiiqo ama hal saac saa waqti u heshid saasa waqtiga u haysatid oo soo gelinaysaa kadib. laakiin aan hadda waqti dheer haystaa maasha Allah oo ujeedaan sidaan noogu soo baxay quruxda badan. asxaabi ina ka heshayna jeclahay rajeynayaa insha Allah biidnillah. mar dambe kastar in la soo gadanayna ogahay sidoo quruxda badan oo ujeedaan waa maanta kastar oo wax laga soo sameeyay ogeen maahan waa adi waxa guriga ku samaysato ku nadiif ah oo ku kharash yar oo waqti badan ka qaadanaynin maasha Allah inta kii kale uu qaadanaa budada loo hadana ka qaadanaya.
asxaabi hadda ka heshay commentiga igu dhaaf isoo baraway sida uu aragtay commentiga igu dhaaf asxaabta ku soo xujeysteen waxaan rajeynayaa inay ka heleen ay soo jawaabi doonaan insha Allah biidnillah intaas aniga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.